السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي وين وايدين سلامة ميل والبا جوجتان وعبد محمود قلع برنامج كيدين كيما جري معهد كوالد نمو ولا ليال برنامج ما انت waxaynu ku soo qaadaynaa runtii arin aniga walaac igu haysa arintaas waxa weeye arinta magaalada Muqdisho soo noqnoqonaysa ee ku saabsan sheegashadeeda dadkii Soomaaliyeed qayb ka mid ah ay leeyihiin halka annaga iska leh horta marka hore waxa habboon inaynu fahamno lahaanshaha aynu sheeganaynaa meel ay ku dhamaato male haddaad tagto magaalada Gaalkacyo waxay leedahay waa meel kala qaybsan koonfur iyo waqooyi kuwa koonfurtu markii hore waxay ka tirsanaayeen dadka Muqdisho leh waa laga soo tigay haddaad timaado magaalada Xaradheere dhinaca waqooyiga dadka ka xiga iyo kuwa koonfurta markii hore waxa la wada aaminsanaa magaalada waa wada leena hadda waxa weeye wixii koonfurta ka soo xiga ayaa yiri annaga leh ka soo tagba Muqdisho dhexdeedii baa timid sidoo ninka la yiraahdo ninka baarlamaan ku jiro maalin dhaxaas hadlayo xaadoole uu sheegay wuxuu yiri warbal suga abgaal uu ii suga meesha waxa iska la buu yiri aan qolo gooniya oo halkaan degan abgaalka kala shaqo kuma leh waxaan horta marka waxa ku tusayaan wax aan macna weyn ku fadhiin laakiin waali oo kale u eg waali oo kale dad Soomaaliyeed oo isku midab oo isku diin oo isku dhaqan oo isku magaciisiya ayaa magaaladii marba qolo ka riixaysa oo annaga leh oranaysa waxaan idin sheegayaa adduunku saa uma shaqeeyo anu Canada aan ku noolaa gobolka aan ku noolahay labada magaalo ugu waaweyn laba qof oo Hindiya ayaa mayor ka ah ama duqa magaalada ka ah labadooda midna kuma dhalan gobolkaas labaduba waxay ka yimaadeen wadanka dibadiisa mid waxa weeye waliba wuxuu leeyahay yani aksan weyn mid isagoo yar buu yimid oo ma garanaysaa gabar iyadoo yar bay timid afkii iyo dhaqankii si wanaagsan bay u taqaanaa laakiin nin waa sidaydaas oo kale gaaga marka af Ingiriisi ku hadlayo laakiin waa la doortay dadkiiba aaminay oo waxbay ku doorteen waa muwaadin uu soo sharaxay hadalkiisii iyo siyaasadihiisii iyo barnaamijyadiisii baa macna laga arkay waxa la ninkan waa u qalmaa waa siinayna shaqada lama oran Hindiyaad ka timid iyo kanaad ka timid iyo noome ekid iyo kanaad tahay iyo Asian baa tahay lama oran Mareykanka waxaad aragteen ninka la yiraahdo Barack Obama inuu madaxweyne ka noqday aabihiisa ka yimid Kenya ma garanaysaa Barack Hussein Obama baa wali magacii Kenya iyo dhaqankiiba wataa lama oranin waraabaha Kenya ka yimid oo Mareykan shaqo kuma leeyahay laakiin hadalkiisii iyo barnaamijyadiisii iyo wuxuu sheegay wax leeyahay wallahi ninkan wax buu qaban karaa waa la doortay nin la oran jiray Alberta Fujimori wadanka Peru ayuu ka noqday madaxweyne asalkiisii waa Japanese waxa laga yaabaa inuu generation ya 2 iyo 3 joogay halka wali magaciisii dambe iyo dhaqankiisii buu wataa Fujimori waxa aan kaasa la yiraahdaa waad arkaysaa maxaa lagu doortay lama oran Latino ma tihid caynka ma tihid magacaaga ma naqaan lama oran laakiin waxa loo arkay muwaadin in wax macna la ka hadlaya oo dadku waxay doonayaan wax u qalma meeshii keenay ama waxa maaragtay ay dadku himiladoodu tahay ka turjumaya waa la qaatay waa la aqbalay inagu hadaba bal dadkii Soomaaliyeed oo magaalada ku dhashay oo shan awoowa ku dhashay oo Soomaaliya baa la leeyahay malihid xagee loo socdaa marka waxaad arkaysaa marka aqoon-yahankii iyo siyaasigii iyo kii caadiga kulli inay durbaanka tumayaan looma sina annaga leh caynka waxaangaas oo kala waxani ma shaqeynayaan wax macna keenayana ma aha haddii aan la isdilin oo dagaal dhicin ilaahay haynaga haye waxaas shaki ku jirin inay waxyaabaha socdaa keenayaan dadku inay isnacaan inay is-colaadsadaan in kalsoonidu dhimato in ma garanaysaa magaalada ma garanaysaa xiriirkii xumaado waxaas oo dhan inay dhacaan waxa marka ma mudana inay inagu dhacaan mata maxay inoogu dhacayaan waxa inoogu dhacayaan bal Soomaaliyeed waxayna waxba ka faa'iideen oo hore ugu dhunay oo hore ugu baabaanay bal waxa inoogu dhacayaan ma la garan karaa anigu waxaan u arkaa arintaas inay tahay runtii arin aan habboonayn maxaan marka arintan u soo qaaday
arrintan ma arag madaxweyne xasan sheekh oo ka hadlaya, ra'iisul wasaaraha oo ka hadlaya, dadkii dowladda ku jiray oo ka hadlaya, ma arag. arrintan waxay u baahan tahay inaan la fududaysan in laga hadlo, waxayna u baahan tahay muwaadinka Soomaaliyeed xaqiisa iyo xuquuqdiisa iyo deegaankiisa iyo shaqada iyo sida loogu siman yahay dalka in la qeexo. oo muqdisho kaliya ma ahana meel walba ummadda muwaadinka Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay in la qeexo. laakiin arrintan muqdisho waa soo noqnoqotay, waxayna u eg tahay in dhibaato ay horseedayso haddii aan laga hortagin oo madaxweynuhu aanu hadlin oo aanu oran ma jirto oo aanu arrintaa diidin, waa halis bay keenaysaa. dadku haddii qofka gurigiisii iyo wixiisii lagu soo doonto oo dhibaato loola yimaado waa caban karaa. haddii dadka bulshada meeshaa degan rati weyne la yiraahdo hadda dhibaatadu ka taagan tahay, haddii ay leeyihiin jardiinkii aanu fariisan jiray ama meeshii carruurtiyadu noogu ciyaari jirtay ama caynkaa oo ma garanaysaa danta guud ku jirtay baana laga qaatay, waa wax la garan karo. laakiin in la yiraahdo qof caynkaas iyo qof caynkaas ma imaan karo, wax kama dhisan karo, xil kama qaban karo, saa ma noqon karo, anigu arrintaas waxay ila muuqataa waxaan la qaadan karin. waana wax ay tahay in madaxda Soomaaliyeed ay ka hadasho oo xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed oo lagu xadgudbayo oo la leeyahay ama rati weyne ama meel kale oo wadan ka mid ah ama ma digi kartid ama kama shaqayn kartid ama xil kama qaban kartid, arrinta in la diido waajib bay tahay. madaxweynuhu inuu ka hadlo, madaxweynuhu inuu arrintaa ka aamuso ma aha, waajib weeye. sababtu waxa weeye haddaanu ka aamusin arrintu way sii fogaanaysaa, waxayna noqonaysaa inay meel xun gaarto oo hadhow aan waxba ka qaban karin. looma baahna marka. waa inuu caqligu shaqeeyo Soomaaliyeed, waa in wixii aan waxba laga dheefayn oo waxba inoo keenayn oo fidno iyo dhibaato maahan aan wax kale keenayn, waa in laga haro, waa waajib in laga haro. haddii aan laga harin horeynu u aragna markaynu isdaba yacno ma garanaysaa khalad isku raacno oo aynu marba dhinac u orano, wax burburino oo wax dilno oo dad Soomaaliyeed erino oo guryahoodii dhacno oo horeynu u aragna dhibaatada ay leedahay. qof ku faa'iiday ma jiro, qof ku faa'iiday ma jiro, qof ku faa'iiday ma jiro. kale waxbaan cayriyay oo waxbaan caynka iyo kii la eriyay midna ma faa'iiday, labadiiba khasaariya dhibaata baa ku sugan. sababtu waxa weeye dib u dhac baa inagu dhacay, dib u dhac qaran iyo bulsho ayaa inagu dhacay. marka dib u dhacaas qof walba u taabtay, yaa marka faa'iido sheegan kara, qofna faa'iido ma sheegan karo. walaalayaal waxaan rajeynayaa arrintan dadka Soomaaliyeed bal arrimahan inay dood caafimaad qabta ka yeeshaan oo runtii arrimahan la jiheeyo oo meel la dhigo oo dadka qabiilka iyo balaayada dadka ku abaabulaya oo sharka wada in laga hor yimaado. maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa. cabdi maxamuud qalla, barnaamijkii idinka iman jiray macadka waalidnimo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.